بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. والله وما سنتين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فيديوغي هور runtii si fiican baad iyo daawateen, si fiican waad u qaybiseen. ilaa khayranaysiyo runtii waan mahadnaqayaa. meel kasta joogtiin ma waxaan ahay dad jecel oo isku xidhan. maanta duhurkii markaan ka soo baxay salaadii duhur xaafadana mid waxaan ugu yimid laba askari oo laakiin dhar siviila caadi sita. waxay u yiraahdeen Cabdilaahi Cabdi baa ku baahan gaarigaaga iska soo kaxayso man raaci kartaa. Cabdilaahi markaa waa agaasimaha ciidanka biliiska marka laga hadlo Djibouti. waxaan ku leeyahay wasaalan gaarigoogii wateen oo waan raacay xafiiskii. waxaan ugu tagay agaasime Cabdilaahi Cabdi. waxaan rabaa walaalahay Cabdilaahi Cabdi wixii aan isnidhi inaan wax ilaawo waa suuragal. markaa waxaan ka jecelahay inaan wax ilaawo inaan wax ku beeriyo. haddaan wax ku beeriyo waxay noqonaya been iyo ribo, laakiin haddaan wax xilmaamo dhib maaha. markaa inaan wax xilmaamaan jecelahay, laakiin aan wax ku beeriyo ilaahay hortii wixii aan isnidhi aniga iyo agaasimaha ciidanka biliiska inaan wax ku beeriyo ma jeceliyo. alla ka cabsi baa loo baahan yahay. wuxuu igu yidhi agaasimahaasi videogaagii waan dhegaystay, dadka waxaad ugu baaqday reer Djibouti kacdoon in la soo baxo oo la mudaharado ayaad ugu baaqday. wadankana waxaa jira qaanuun mudaharad waxa loo maraa dariiq qaanuun baa jira. wasaaradda arrimaha gudaha la weydiistaa. markaa sidii dastuurku sheegay wadanka dastuurku kaliya inaad mudaharad aad dhigto codsigii ayaa laga rabaa. mar haddaad dhigto khalaas mudaharad waxaad u leedahay xeer baad u leedahay. marka qaanuunka wadanka dee si fiican uma wada sheegin, laakiin wuxuu igu yidhi qaanuunka wadanku mudaharaadka dariiq la soo maraa jira. markaa dadkii kacdoon baad ugu yeedhay. de waxaasina wax saxa maaha, qalalaasa looma baahnaa, nabadgelyaa loo baahan yahay. markaa wuxuu yidhi taa waan kugu haysanaa. laba wuxuu yidhi telefoonka adiga khadar, markaa waa khadar cabdi ibraahim walaalkay waad wada garanaysiin. telefoonka markaad ku wada hadlaysiin mudaharaad baa dadka ugu yeedhin buu yidhi. labada arrimood ayuu igu yidhi agaasimuhu inaan wax ka tegayo waa suuragal. wuxuu igu yidhi may tiri baa taala, waa ereyga isticmaalay. waxaan kugu yeedhay may tiri baa taala. markaa walaalkay waan kuu digaya, intayna wax imanin ayaan kuu digayaa may tiri baa taala. okay, waxaan ku yidhi ma hadli karaa? wuxuu igu yidhi haa. waxaan ku yidhi kow aniga ciyaala suuq meehi baan ku yidhi. qof wuxuu qabanaya la dhuunta meehi, bog baan leehay. boggaasi waa magacayga. wixii aan fikir aan qabo waxaan ku yidhi boggaygaasaan ku baahiyaay oon ku faafiyaa. marka aniga khadar telefoon dhalinyaro si qarsoodiyo ugu yeedha mudaharaad waxaan ku yidhi gama suuroobino ciyaala suuq meehi. laba waxaan ku yidhi wixii aan adhiyan duuba waan garanaya. waxaan ku yidhi reer Djibouti ilaa hadda waa la hayaa midhadiidnimo gaargaaraa la hayaa oo dad wax diiday waa la hayaa, laakiin inagoo isku duuban wax diidna baan ku yidhi anigu mudaharaad dadka uguma yeedhin baan ku yidhi. waxaan ku yidhi ugu dambeyn Cabdilaahi Cabdiyo waa agaasimihii maxaan ku leedahay booliska. waxaa tiri wadanka qaanuun baa jira. waxaan ku yidhi qaanuun ma jiro. hadduu qaanuun jiro waxaan ku yidhi fuaad ma xidhnaadeen, bannaanku joogi lahaa. waxaan ku yidhi hadduu qaanuun jiro 2013 daadu ma xidhaane bannaankaan joogi lahaa. markaa wadanka waxaan ku yidhi qaanuun ma jiro. wuxuu igu yidhi haddaabad rumaysan tahay wadanka qaanuun inaan jirin dee iskuma imanayno, col baan nahay. dee waxaan ku yidhi marka horeba heshiis ma ahayn. marka horeba waan ku kala duwaynay arrinkaase heshiis ma ahayn. walaalkay anigu waan kuu digay buu yidhi. waa ka hadha wixii ka dhaca anigu kuma jiro, way dhan tahay baan ku yidhi. anaa wixii aan dhaanaa ka mas-uula. dumarka iyo ciyaalka ha igu dhuumanina bannaanka igu soo baxa buu yidhi. waxaan ku yidhi bannaanka waaban joogaa diyaar baan ahay, waxaa doonta samee, way noo taallaa. iigu yidhi waxaan ku yidhi way noo taallaa. aniga iyo agaasimaha ciidanka biliiska intaasaan soo kala gaadhay. hadda dharkaan sitoo dhidid baa ka muuqda, waa dharkii aan kaga imid xafiiskiisii saacad ka hor ayaan ka imid. intaasi waa continuigii ama waa madmuunkii wixii hadalna dhex maray aniga iyo agaasimaha biliiska qaranka ee Djibouti. waxaan jeclaa bas walaalahay inaan laba qoliyo la hadlo, hadal aan ku gabagabeeyey. horta waxaan la hadlayaa walaalahay aan walaalanahay, hooya baan wada dhaleen. hadalkaa waana qarin kari waaye oo dee adduunka maanta wadankan dadka waxa lagu cadaabay waa warkan la qarinayo. waayada qaar waan qarin lahaa, laakiin maanta go'aan baan ku gaadhay inaan qarinin oo sheego.
marka hadalka aan sheegay waxaan ka baqayaa walaalahay oo hablo badan oo ila dhashay inuu dhibo marka walaalahay baan la hadlayaa waxaan idin ku leeyahay qofku adduunka go'aan buu leeyahay dadka qaar baa iska khamriga iska cabo waa go'aan dadka qaar baa suuqan ku jira waa go'aan adduunka shaka fees son shwa marka walaalahay intaas oo goor waan wada fadhiisanay waxaan idinku yiri waa go'aan hooyaday oo nool anoo xiran bay dhimatay Allah naxariisto ayaa hooyo idageysan maysidee ma qalbeygu oran jirto waxaan ku oran jiray hooyo waan ku dhageysan laakiin ku maqli maayo hooyaday hadalladii isku kaay dambeeyay hadalladaas ahayd intii dambe de wax garadkii baaba ka tago anoo jeelka ku jira ayay go'day inaan xiranahay in kale hooyaday warka mahayn marka waxaan ku leeyahay walaalahay de hooyaba waan ka diiday hooyaday macaanba waan ka diiday marka hadda videoga markay maqalaan walaalahay ila soo hadla waa walaal isma kala goyn karo laakiin la soo hadlo ii duceeyo Allah ku garab galay igu amaana wax fiican baad haysaa damiir iyo dadnimo loo baahan yahay walaalkii halka kaga mees inta igu la soo hadla laakiin walaalahay oohiniyo waxa iska daa waxaan deeyneen hooyaday macaan baan ka yeeli waayay waa qaab loo noolaado waa doorasho waa qanaaco waxa soo intaas magac baa loo bixin karaa marka hablaha walaalahay oo jecelahay aanaad u jecelahay walaalahay salaam barkada walaalkay oo kale jooga waxaan leeyahay ila soo hadla telefoonkaygu wuu furan yahay laakiin ila soo hadla Allah ku garab galo ilaahay khayrka ku waafajiyo ilaahay bana wax dilay insaan ma dilo naftu waxa iska soconay xilligii ay baxaysay ilaahay oo qoray baxaysa hadda cid dilaysaayna ma jirto meeshan dilma ma jiree de waxa la isku hayaa sidaan asaxaya sidaan khalad cid dilaysaay ma jirtee gabdhaha walaalahay san ku leeyahay laba waxa la hadlayaa bahweynta dadkan qaraabana la hadlaya waxaan qaraabo ku nahay mabda waxaan rumaysanahay yaa walaalahay inaan karaamadina dhowro xorriyada madax banaani sharaf waxa soo dhan lacag iyo adduunyo ka qiimo badan yahay lacag iyo adduunyo wax ka qiimo badan inaad xor noqoto karaamo noqoto waana wax la isku hayaa maanta waxa fuwaad loo haystay fuwaad gabadhu ugu jiro maxaad u hadashaa adigoo madax banaan oo xor maxaad u hadashay oo wuxuu fuwaad saacada ku xidhay waxa qof kasto geesiya taariikhda caalamka lagu dilay maxaad xor noqotay marka dadka walaalaha xornimada walaal ku nahay baan la hadlay adduunka meesha doonaan baa ka joogan afkayga hadii fahmayaan iyo hadii loo macnayaba si gaar ah reer Djibouti aan la hadlayaa Soomaali Anfar iyo Arab walaalahayga Anfarta la hadlayaa walaal baan nahay isku wadan baan nahay isku taariikh baan nahay isku qadiya nahay waxa wada doonaynaa xornimo iyo gobonimo iyo sharaf baan doonaynaa walaalahay baan la hadlayaa waxaan leeyahay meesha baqa ma yaalo yaan la isbajinin af Soomaaliya la isbajinin nimankan dadka waxay u gumeystaan qofka lagu hala qabanaya ama hooyo qofkii lagu qabanaysa ama aabba lagu qabanaya ama ooridiis baa lagu qabanaysa ama oorida ninkeedii baa lagu qabanaya ama asxaabtii mabriska lagu qabanaya miidadan iyo gumeysiga dadka waxa u jilciyay qofkii lagu hala qabanaya yaan lagu isqaban lagu isqaban walaalahay la dhashay saasan ku lahay walaalahayga aan xornimadii iyo gobonimada wadaagnana en كجرنو la marche vers la liberté la grande marche vers la liberté المشي إلى الحرية سعد كجدي أنا كجرنو حرنمدا ولا لها نكو ولا لناي يان لسبجنين يان لسكعب سنين هلا يلا سو هذا تلفون كي يقفري هاي لكن هلا يلا سو هذا إلهي خير هيدي سيو الله هيدي نقرب جو هلا يسكولا سو هذا إلا يسبجيو يان يسكولا سو هذا وقدام بين وحنا هذا الكي واحد كنا ما يشتري لا بعرمود فؤاد السيدة يو ما جوية يؤوت يجباد يمعني يجوا نقنا واحد كده قتي ولا الكاسي جركي سوحي نبرم بدرويين دوا جوا يجوية يؤوت يجباد قف كسر مرة يقنا ودن كوا عذاب وحاجة مركز الدوز يحبذ نروح هذا إن كاس ما شارس بوجرا وحن لا هاي نبان كفؤاد وحرية فؤاد السيدة كون سيوان فريساني سيدة دي طبعا كجوا لما دختر ما بحنا لبا إكسبر waxaan ku nidhi noo keena go'aan fuaad miyuu baahan yahay in dhakhtar la jiifiyo in kale ilaa 18 juwan marka waxa ka dhigantay fuaad ugu yaraan ilaa 18 juwan maanta waa 10 casho kala hadhay fuaad jeelku ku sii jiri mar waxad kaliya juwan juwiye ut fuaad hal sii daayo fuaad hal sii daayo ugu dambeyn waxaan leeyahay walaalahayo waxaan u dagaalamaynaynaa waa dadnimo waa sharaf
hadda dadka la erinayo qof mushahar ma qaato qof ma shaqeeyo qof dawlad wax kama qaato dadkaas waa bilaa mushahar ilaahay wax siiyo ilaahay baa arsaqa maxaa la isku haystaa waxa la isku haystaa le capital l'essentiel qof ha noqonin baa la isku haystaa dad ha noqon qof waxa naca ha noqon hadda ninkaasi biirooga wuxuu igu yeeray sidan yeel hayeenaan ku raado igu yeeray de khizir doofaar ma waxa la isku haystaa doofaar iyo khizir noqo iyo doofaar iyo khinzir ma noqonayo ayaa la isku haystaa waxaan la hadlayaa walaalahayga videogaasi uu gaadhayo waa inaan go'aan ku gaadhno inaanan doofaar iyo khizir noqone waa inaan go'aan ku gaadhno inaan noqono bashar ilaahay u abuuray ولقد كرمنا بني آدم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله